mid ka mid ah beeraha dega gobolka Gabiley dhalinyarada ka soo jeeda ayaa maanta waxay si rasmi ah ugu biireen xisbi xaakimka kulmiye waxayna ka soo digaroobteen xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaanada dhalinyarada iyo waxgaradka ka soo jeeda beeshaasi oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxaa dadweynaha ka mid ahaa cidii danaynaysa xisbiga kulmiye arrintaanu shalay ka galnay ee gafka ahayd ayaanu ka soo noqonnay dhalinyaradeedan maryaha asli ee shalay qaadatay maryahan dhiiga waanu ka noqon muxuu shalay shaytaan laga fogaaday laakiin waxba ka dan maaha mar haddii aanu maanta ka soo noqonnay iskala xaafidkii taageerayno muxaafidkii horaba aanu u ahayn ee kulmiye aanu nahay halka waxaan ka soo sheegaynaa shalay wixii dhacay inaanu dadka ka raali gelino iyadoo weliba lagu qaaday beesha maliili beesha madigaan ayaa shalay soo noqotay beesha madigaan la sheegay inay waxba ka jirin oo imika afartayna mooda caroodeen anigu ka ahaa aan ka soo noqonay marka waxaan u sheegaynaa dadkii daawaday inay halka waxa li wax ka jira jirin oo nahay xisbiga kulmiye maxaafidka Muuse Bixi Cabdi beesha kaliya ee saddex calan ku wada qaban gacan midda kaliya anagu haysanaa waxaana taageersanaa xisbiga kulmiye uu hormoodka u yahay Muuse Bixi Cabdi inaan taageerno codkayga siino taariikhda waa lagu yaqaanaan waxaan nahay beesha kaliya muwaafaqo leh ee meel kaliya marta beesha arrin baa lagu yaqaanaa waxa lagu yaqaanaa beeshu inay arrimaha ay ku tahay ilaahay milgaha u siiyay ay tahay inay siyaasadda mowqif u tahay halka bini'aadanka kale siyaasadda ku kala gedisan yahay beeshu si xor iyo xalaal ah xisbiga kulmiye u taageertay waxa weeyaan xisbiga kulmiyena weligoodna way soo hayaan jaro walo xisbiga kulmiye soo marayna way soo mareen tartankii ugu dambeeyay tartankii asxaabta anigoo ah xildhibaanka golaha deegaanka beesha anay soo sharaxday ninkii labaad xisbiga kulmiye ugu codka badnaan ahaa intaaba beesha xisbiga u soo ahan jirtay haddaba shalay waxa weeye haddii ay timitay in yaroo kala wacsaani waxa ilaahay mahadiya waxa weeyaan in arrintii nagu dhamaatay si gobonimo iyo milgale waxaanu isku ognahay inaanu xisbiga kulmiye dhisno xisbiga kulmiyana xaqiiqatan danta qaranka maanta ku jirta Muuse Bixi Cabdi waa nin dalkan u soo halgamay waa nin garanaya waxay beel walbaaba qarankan abaal iyo tar ay u soo gashaba waxa weeye ninka in laga weecdo oo nin qurba jooga oo waxa weeye caruurtiisa iyo qoyskiisa dibadda jooga maanta la tartanaya isagana caruurtiisa iskuulka geesaad bay dhigtaan sidaa awgeed ninkaas muwaadina kaasa waxa weeyaan cid walba ka xiga taariikhduna nafsi bay leedahay hadii maanta Mukhtaar Nuux Ibrahim Hon Cable TV gobolka Gabiley